السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم صاحب الوالدين سلامي. waxaan rabay inaan xoogaa yar aan ka falceliyo mida dhahaan ibnu cumar oo kaar fiktimnimo xoqonaya oo ku dhegan maxaan lahay yare dhahaan baba isku tasho u taagan odayga hadda corona aflagaadiyey iyo odaygaas inaan la kulanto qalad ay ahayd, marka waa inaan video raaligelin lasoo duubtaa waxa noocaas odayga ku dhegan yihiin waa professor Shucayb. Asina wuxuu ka sheegay in dhulkan ay jiraan yuhuud usoo haajirtay hadda ka hor. yuhuud way soo haajirtay, taa shaka kuma jirto. marka bal hamar aan sila dhegeysanay videogan ila daawada kadibna falcelin insha Allah dhiiban doonaa. waa inuu fiideo soo duubaa oo mataqaanaa soo dhahaa maaragtay ninkan odayga ah waa ku qaldoomay, aqoon uma lahayn, nin maaragtay dad qowmiyadeeda dhibaateeyey waaye gadaala ka ogaaday, raaligelina ka bixina fiideo inuu kusoo tuuro waa abtiyo wax yar buu sheegaa, wax yar dhegeyso. maadaama banaadiriga asalka waxaa rabaa dadka ay banaadiriyeen inay ayaga maamulaan, hoggaan u noqdaan, laakiin kii adiga banaadiri aad ka dhigtato hoggaan kuu noqdo. marka waxaan rabaa horta ma jirtaa wax yuhuuda oo dhulka Soomaaliyeed usoo haajiray ama xataa yuhuudnimada iska dayno raggan banaadiriga sheeganayo dhulkan horta haajiraad noocay ku yimaadeen ma caraba mise waa qowmiyada kala duwan. intaan isla eegna u baahnaa dowlaha source waxaan usoo qaadan doonaa book insha Allah la socdo wanaagsan. source ahaan waxaan usoo qaadan doonaa book la dhaho Countries of the World Somali Republic qaasatan laga qoray. qoraagan waxaa la Thomas Clancy. qoraagan wadamo fara badan oo taariikh ka qoray based on taariikhihii wadamada ay lahaayeen. base 93 isla aadi doonaa hadduu ilahay idmo insha Allah la socdo wanaagsan. base 93 wiilkaanaan ka hadli doonaa. beejkan wuxuu ka hadlaa Muslim migration, qaxii ay soo qaxeen muslimiinta qarnigii 17aad iyo 17aad ee dhulka Soomaalida ku soo qaxeen. saa ujeedin wuxuu leeyahay hadda the late 15th to 17th century saw the arrival of Muslim families from Arabia, Persia, India and Spain to the Ajuran Empire. The majority of them whom settled in the coastal province. Some migrated because of the instability in their respective region. si clearna ujeedina wayna buug qaybtan wuxuu ku leeyahay qarnigii 17aad ilaa 17aad waxaa la arkay u dhahay muslimiin kusoo qulqulaya qoysas muslimiina oo kasoo qulqulaya Arabia oo dhulkan maanta la dhaho Middle East agan iyo Persia oo Farisna loo yaqaan ama dhankan Iran iyo wixii ku xeedan Hindiya iyo Spain oo usoo qulqulaya Ajuran Empire meesha Ajuran ka tilnaayeen. Okay, the majority wuxuu leeyahay badankood waxay degeen ku leeyahay dhulka xeebeleyda. qaar waxay ka soo qaxeen amni darro deegaankooda ka jiro, carqalado dhulkooda ka jira macnaha. tusaale wuxuu usoo qaadanaa as was the case with the Hadrami families from the Yemen and the Muslims from the Spain fleeing inequation. hadda qaarna wuxuu ku leeyahay sida tusaale wuxuu usoo qaatay Hadrami, qoysas Hadramiya oo Yemen ka soo qaxay iyo muslimiin Spain ka yimid. marka pointa u socdo markaan waxa waaye oo raggaas kala dirsan ay leeyihiin wiilka waa inuu raaligelin bixiyaa maadaama oday noo gafay oo life oo macnaha la kulmay. horta qoysaskan Hadrami familieska ama qarnigii 17aad ilaa 17aad nawaaxiga horta deegaanka ama familiga Hadramiga waxay ahaayeen rag Yahuudi u badnaay. Jewishka ana waxaan ka hadlaa qoys ahaan qof oo Israa'iili oo Muslim ah waa jira, Israa'iili Yahuudnimada aaminsan wuu jira, laakiin ana waxaan ka hadlaynaa dhalashadooda
ma fahant meeshay asal ahaan ku abtirsadaan inay yihiin rag bin Israa'iila. Okay, odaygan wuxuu sheegay rag Israa'iila soo qaxay dhul Soomaaliyeed inay imaadeen qubuurna ku leeyihiin. Maanta hadda ashraaf ula baxay doesn't make sense. Soomaali waxay dhahaan ama maamaha carbeeda waxay ahayd qofkii naftiisa sharfa ashraaf ama shariif ma fahant marka ama ashraaf isugu wac ama qolo kale isugu wac muhiimadda waxay tahay in Yemenna ka imaatay dadka hadda banaadir isku tilmaama badankooda wada dhasha maaha sida meesha sida buugan ku cad qaar biirshi ka yimid Hindiya ka imaadeen Spain ka imaadeen Carab ka imaadeen although carabta imaan horta taxta wali waxa ka tira badan Hindidii hadda 24 waxaa soo baxay dad badan oo ka soo jeeda banaadir sheegto oo DNA iska qaaday asalkooda Hindi Pakistan in waxaas laga tuuray mid kale ku xoojiyay Hindi Soomaali ma joogta hadda ma biin isqarnayaan ka carab isku xoqanayaan laakiin way joogtay waxa cadeen ku filan siidka agaarkiis waxa ku taal meel loo qabuurta Hindida Hindi way joog jirto dhulkan shako ma jirto dadkan Yemen sheegaha qof walba Yemen sheegto macnaheed maaha inuu carab yahay ama macnaheed maaha inuu Yemen qoomiyada kala duwan degan maanta yuhuud ba percentage yar haska noqoto boqolaal qof dhamaadaan laakiin way degan yihiin xilliga ku badnaayeen waa jirta marka kulay in la gaf u maleemaay hadii lahay aagaas ka imaadeen ma fahant xilmaam hadal kuma jirto qaarna waxay u imaadeen ganacsi iyo inay diinta faafiyaan oo ayaga culamaha ay imaadeen bog waxaa lahaa countries of the world Somali Republic qof kale uu raadin karaa ana hadda waa borogareeyay waa akhrinaya waan iska celinayna hadda ilaahay idmo soo marka qofka u baahan oo soo project garsa karaa in la helayo soo beeca Amazon agas laga helayo ama bog qaali muhiima wuxuu ka hadlaa hadda ajuraan dadka xiriirka la lahayd Oromo invasion-kii waxyaabo badan oo adi muhiim u ka hadlaa bogan waa garana umaleena marka modern days iyo kuwii ka horeeyay golden age-kii Soomaalida waxyaabo badan oo bogan xusa marka waxaan jeclaan lahaa in dhalinyarta bogtan ka faa'iideystaan insha Allah waa mahadsantihiin thank you so much marka nagu celiyo bog waxaa la countries of the world Somali Republic